nabiga ziyaaradiisa ma gasho marmarsiya ma gasho shiica shuruudiina ani raaco xili lagu gudi jiro bishii suubaneed ee mawliidka ahayd ee fadliga badneed ee uu dhashay nabigeena moxamed bin cabdullaahi bin cabdi muطalib moxamed alamin khayru khalqi اllah nuuru carshi اllah khatim alanbiya wاlmursaliin xabiib ullah ma sha allah ayaa waxaa lagu qabtay munaasabadii nabiga soomaaliya ama dalka soomaaliya munaasabadda xuska nabiga ayaa lagu qabtay hay-adda alkhomeni ee iiraan ayaa ku marmarsiyoonaysa xuska nabiga waxayna bilowday shiicaan aabowka alla magan ka rasuul magan nabiga ziyaaradiisa ma gasho marmarsiya ma gasho shiica shuruudiina ani raaco axmed nabi moxamed iyo shaaficu alkhiyaama nuurey salaam calayka axmed nabi moxamed iyo shaaficu alkhiyaama nuurey salaam calayka moxamed yaa rasuul allahi sala moxamed yaa rasuul allahi sala calayka wasalam almawlaa moxamed ya nabi salaam calayka ya rasuul salaam calayka nuur lmaka walmadina ya nabi salaam calayka ya rasuul salaam calayka nuur lmaka walmadina nuur lmaka walmadina nabiyo maxamed walmadina ya nabi salaam calayka ya rasuul salaam calayka nuur lmaka walmadina nuur lmaka walmadina nuur lmaka walmadina maadaama aan nahay ummad muslim ah waxaan u dabaaldegaynaa ama aan ku dhex jirnaa bishii mawlid ee barakeysneed ee nabigaani moxamed alamin moxamed cabdullaahi bin cabdimuطalib alxamdu lilah bil aad iyo aad u khayr badan waaye marka qof walba oo muslim ah waxaa loogu baahan yahay astaanta muslimka in ay ka muuqato labiskan waxaan usoo qaatay inaan ziyaarada nabiga aan xuso idinkana in ay la xustaan ajar iyo xasanaad allah naga wada siiyo